hiddaha soomaalida kuma jiri jirin qolada maalintaas laga ilhelaa inay isdhiibto sidaa daraaddeed aadan galayd iyo qoorwaa jaamaca raggii lahaa inkastoo goobtii daboolan lagaga adkaaday haddana inay aadsadaan mooye inay sidaas dagaal kaga haraani facshar bay la ahayd geeri bayna ka xigeen maalintii dambe labadoodii oo isguubaabinaya dirirta soo socotaa siday noqon doontana malabmalaynaya ayaa nima socota ay u yimaadeen kuwaasoo markii la iswaraystay u sheegay boos ilaawe inuu nugaal u sodcaalay dhawaanna kala soo noqday faras aan isaga oo kale la adag lana maqal magaciisana roor godan la yidhaahdo dharaartaas buu aadan galayd isna wuxuu kabaha u iladay nugaal oo sidaan hadda ka hor idiin sheegay fardaha waxaan loo doonan jiray wuxuu ka jiriyey ceebtii daboolan faras ka mayra isla ninkii farda wanaagga lagu bartay ee roor godan uu boos ka soo gadan jiray ayuu abbaaray markii ay kulmeenna ninkii baa ku yidhi aadanow faraska aan kaa gadaayo wixii aan ku idhaahdo haddii aad iga siinayso aniguna ballan baan kula gelaya aadanna wuxuu ku jawaabay hawraarsan iyo guddoon ninkii faraska ahaa ayaa markaa yidhi wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan wixii isaga eryadaana ay gaaraan xoolahaagu waa ku celis ninkii faraska lahaa intuu 12 qaalmood guddoonsiiyey ayuu aadanna nugaal kala soo laabtay faras isna ciid caan ka noqday waa qadowlaaye faraskii la baxay galayd iyo raggiisii shirba isugu yimaadeen su-aashii ahayd boos ilaawe ayaynu ku beegnaa ayaa mar kale la isla soo qaaday aadan galayd wuxuu yidhi aniga iyo boos isku kaaya daaya oo 3 arrimood dartood iigu beega waa midda koowaad ee faraska iyo qadowlaaye wuxuu eryadaa kama baxsadaan wixii eryadaana ma gaaraan waa midda labaade boos waa il keliya anigase labaduba waa ii dhan yihiin waa midda saddexaade midigta oo qura ayuu boos wax ka tuuraa anigase midigta iyo bidixduba waa isugu kaymidoo waxaan ahay 2 midigle hadalkama dambayne sidaas baa lagu faataxaystay goobtii la sugaayey ayaa dhacday fardaba hubsaday iyo dhalinyaro ku joogta ayaa la isula soo baxay waa barqa dheer hootooyinkii iyo warmihii buu cod waliba loolinayaa fooda ayaa la isdaray maxaa nin door dhulka yaal maxaa garmadoobe xilmihii laga soo daadshay degida jiifa maxaa keligiis goobta saqlaynaya baxdow ninkii lahaa laga tuuray goobuhuse kala magac lehe tani waa rawax degan dhinac waliba intii laga dilay wax kuma qiyaasan jirine kolba kii la batiyo ayay ceebta iyo magaxxumadu raaci jireen waa ayaanba ayaane maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boos ilaawe nimankii uu ammaanduulaha u ahaa waa la baqa eriyey koodii la gaarana warmihii iyo eebooyinkii baa lagu boobay ninbase nin buu eeganayaaye aadan galayd ayaa meel yaro durugsan wuxuu ka arkay boos ilaawe oo ku jooga faraskiisii roor godan la baxay isna qadowlaaye intuu nadigii 2-3 jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada meel halisa kaga dhufto ayuu qadowlaaye hore u booday isagoo u qaatay gacantii uu aadan kor u qaaday in nabad sheedal ku soo socdo faraskii markuu sidaa hore ugu booday ayuu boos ilaawena aadan hooto halgaad ah ka gaarsiiyey oo jeeniga midig inta kaga dhuftay dhinaca kale ka dusiyey iskana dhaqaaqay aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu ilqooreedda ka eegay boos oo dhaafaya ha yeeshee isla markiiba neefkiibuu ka dhacay soo halkaasna kuma ay rumoobin weedhii qorwaa ee ahayd hooyday walle kaas baa ku dili doona waxaa la yidhi raggiisii oo bidhaanta qadowlaaye oo aan lagu joogin ay soo kicisay ayaa soo dul joogsaday caynaankii faraska ayuu weli ku dheggan yahay naf qumanise kuma jirto waxay ku yidhaahdeen war aadan bal waran sidee bay wax kuu gaareen isaga oo dhab u taahaya ayuu yidhi maxaad iga waraysanaysaan markaan tabar hayena tala ma hayn hadeeroo aan tala hayana tabar ma hayee adduun ikhatal waxay noqotay maahmaha iyo oraha lagu taamilo qaato oo aayaha isla weynida in badan inaga baraysa intaas kadib maansiyahano badan oo Soomaaliyeed ayaa sheekadaas gabayadooda ku xusay iyaga oo bulshooyinkii iyo beelihii ay ku dhex noolaayeen
aayaha tala xumada ku tusaalaynaya. waxaa madahayga ugu caansan Ismaaciil Mire oo gabaygiisii Ragow Kibirka waa lagu kufaa ku taariikheeyey qaar ka mid ah raggii Soomaaliyeed ee isbiday dabadeedna ay laandayri la duushay. tabkii daraawiishta kadib waa gabaygii uu tiriyey ee uu ula jeeday saajinkii kibirka badnaa ee Carab Dheere la oran jiray. Ingiriisku markuu Laascaanood qabsadayna uu u soo magacaabay. waa gabaygii uu ugu furfurtay alartiisii halqabsiga noqotay. inkastuu ka laho ama kabtiyo ama ku dheer fuulo badka luun ku jira kay ku tahay amase koob shaaha kulligood addoomaha rabbow qaybshay kibistiiye qof walbaba wixii loo katibay waa la kulansiina nina inaanu soo kororsanayn kaa la ogaado. intaasoo uu ku xejiyey dagaaladii qabaalka iyo tala xumadii u horseeday. 6 koosee reer Caligeri ee kow isaga siiyey kasii waaye wuxuu waa qabaal waana kabanaaye Ragow Kibirka waa lagu kufaa kaa la ogaado. tuduc kale oo isla tixdaas ku jirana wuxuu Ismaaciil si gaara ugu xusay aadan galayd iyo gardaradii uu ku baxay, gaar ahaanna weedhiisii ahayd hashan sidee ku bixiyaa muslimadan ka leefayaa iyo wixii uu ka dheefay. waa kii lahaa karaankuu lahaa ina galayd kahay gadaalkii iyo kaarkuba ma joogeen hadduu keena tuludii iyo baallacad keliyaa kuma jareen kii uu quursaday Ragow Kibirka waa lagu kufaa kaa la ogaado. maansayahankii caanka ahaa ee Ayax Maxamed Dhowre la oran jiray ayaa isna sida Ismaaciil yeelay. isaga oo u dan leh niman ay wax badan degaan wadaag ahaayeen oo uu jeer qoonsaday ayuu tiriyey gabaygiisii Quursidiid la baxay. markaas buu tuducyo ka mida wuxuu si kooban ugu xusay qabaalkii uu Cumar Ajidalooli jiray iyo colaadii ka dambeysay ee lagu hoobtay aadan galaydna uu ku baxay. wuxuu yidhi qodob kalena waa duniyadee qodan ka faaleeyey majeerteen qaraabo iyo tol iyo qiimi kala waaye Caligerina xoolo iyo qab iyo waaye quruxdii iyo qaaskii ku dhacay aadan buu qaaxadii jaray ee qabaalkii fureebay lahayd waa yar qowraray. gabyaa kale oo la oran jiray Sugulle Xilsi Godgod ayaa isna gabay dheer oo 1930 uu tiriyey sheekada ku soo qaaday. isaga oo la gasnaqsanaya ugaaskii qoladooda oo uu abaadlac ka tirsanayay kibirna uu maraha ku dareemay ayuu qayb gabaygaas ka mida wuxuu ku xusuusinayaa tala xumadii dhacdada qabaalka ku wacnayd iyo hoog iyo ba wixii labadii qolo ee isku maagay ka soo gaaray. markaas buu yidhi diriqsa waxaan dhammayn baa kharibay dil iyo daaroodee tala xumada doogteeda waa lagu dufoobaayay degadaas ka badan reer intuu lumiyey deelqaafi qabaalkii daloolaba rag buu dilay naftiisii iyo dun hadday gashaan kama kaceen dagaladoodii iyo Caligerigu doorkuu ahaa gabalkii daaduuye suubaan wuxuu diriciya dhalay mawdka loo dadabiye rawaxii daboolan buu ku go'ay duulkii reer Gorooday dugaa kama dhargeen kibir haddaan loogu dowgelin.